السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلامي ولا ليال maantan waxaan idin hayaa qiso kale murug badan. qisadan way ka dugan tahay qisooyinkii hore ee aan idin soo gudbinaynay. qisadan waxaan mowduuc uga dhignay hooyo aan naxariis lahayn. qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan: أحلام وهويني وسيجيدا جيريوذي وحونا كغتغي لبا gabdhood. gabdhihii ayaa midna aad u qurux badneyd midna way fool xumeyd. dadka oo idil waxay ugu yeeri jireen gabadhii foosha xumeyd ama tii xumeyd. Axlaam ayaa niman badan soo doontay, mid ayay dooratay inay guursato. markii uu arooskeedii soo dhawaaday ayay Axlaam hooyadeedii la fadhiisatay oo labadii gabdhoodna meesha ay hurdaan. waxayna dhahday arooskeegii baa wax yar ka haray. waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan gabadhan wadanaynin. waxay ula jeedaa Maraam, gabadhii fool xumeed. waxayna dhahday waxaan wadanayaa Manaar, gabadhii qurxooneed. hooyadii ayaa dhahday gabdhahaaga miyaad kala saaraysaa? gabadhaada miyaad ka tegaysaa? Axlaam waxay dhahday hooyo adigan kaaga tagayaa ee adiga korso. intaas oo dhanna ayaga ma daransaneen, waa ay jiifeen. laakiin Maraam way soo jeeday. wax kasta hooyadeeda Axlaam ku hadlaysayna waa ay maqlaysay. markaasay iska oysay. Axlaam arooskeedii ayay isku diyaarisay, waa la aroosay. arooska kadibna Manaar ayay wadatay. Maraamna maalintaas maalin murugo badan ayay u ahayd. walaasheedii oo faraxsan ayaa la wadayaa, ayadana waa laga tagayaa. markii ay baxeen kadib Manaar way iska oysay, murugootay, cuntadiina ka go'day. ayeeyadeed ayaa u timid kana tirtirtay ilinta ka socotay. Maraam ayaa tiri aniga hooyadeeda waan jecelahay, iyadana ima jeclaa. Maraam aad ayay u xanuunsatay. ayeeyadeed ayaa isbitaalka geysay. habeene badanna la dhafartay ilaa ay ka bogsato. markii ay bogsatay kadib ayaa ayeeyadeed waxay ku tiri Maraam aniga waxaan rabaa inaad waxbarashada ku dadaasho. cilmiga ayaa kor kuu qaadi doono, waxaadna noqonaysaa gabadha reerka ugu fiican. waxay kaloo kala sheekaysatay riyadeedii inay dhakhtar noqoto. Maraamna si fiican ayay u dhageysatay. ayeedii waxay tagtay iskuulka, waxay u sheegtay qisada Maraam. waxayna ku dhahday Maraam maskax ayay leedahay, si gaar ahna waa inaad ahmiyad u siisaan waxbarashadeeda. rajaa maclimad aad u wanaagsan ayay ahayd, ilmana ma dhalin. ayeeyadii waxay dhahday Maraam adigan kugu ogahay, waxbarashada heerka sare inay ka gaarto ayaan jecelahay. rajaa Maraam naxariis badan ayay tustay. markay casharka sharaxaadiisa dhammayso way la fadhiisan jirtay, waxayna u sheegi jirtay sheekooyinka dhiirigelinta iyo nolosha quruxda ay leedahay. Maraam waxay ku kortay gacanta ayeeyadeed iyo maclimadeedii Rajaa, waxayna noqotay fasalka 11aad ee dugsiga sare. Axlaam hooyadeed ayay soo booqan jirtay, waxayna ugu dacwoon jirtay akhlaaq xumada ninkeeda iyo arxandarada inanteeda Manaar. way iska oon jirtay, hooyadeedna way dejin jirtay. maalin maalmaha ka mida Axlaam ayadoo si degdeg ah uu ku jiro ayay guriga hooyadeed timid. waxayna raadinaysay talow maxay raadinaysay. qaybta labaad ayaan uga hadli doonaa waxay raadinaysay iyo waxa dhici doono iyo qisada meesha ay ku dhammaan doonto.